waxbarashadu waa hubka ugu awoodda badan ee aad ka faa'iidaysan kartid si aad wax ugu beddesho adduunkan aynu ku noolnahay. Inkastoo heerka waxbarashada oo ay ku kala duwan yihiin dalalka, haddana waxaa jira xiriir cad oo ka dhexeeya tayada nidaamka waxbarasho ee dal iyo maqaamka dhaqaalaha. Guud ahaan, wadamada soo koraya ayaa u muuqda inay muwaadiniintooda u fidinayaan waxbarasho tayo sare leh oo ka badan iyaga oo bixinaya tayada ugu wanaagsan si ay sare ugu qaadaan muwaadiniintooda, maadaama waxbarashadu si cad waxay muhiim u tahay wax ku oolka caafimaadka guud ee dal kasta. Qiimeyntaynu waxay ku salaysan tahay 3 qodob oo si siman loo miisaamay: nidaam waxbarasho ee dawladeed oo la horumariyay, waxbarasho tayadeedu sareyso, iyo dadka danyarta oo hela waxbarashada sare ee jaamacadda. Isku darka nidaamka waxbarasho ee aan kor idinkugu soo sheegay waxa ay sal iyo barbilow u tahay waxbarashada dowladda federaalku maamusho, taasi oo ka baxsan kana qoto dheer. Darajaynta dalalka leh nidaamka ugu fiican waxbarashada waa sahan caalami ah oo ku salaysan fikradaha sanadlaha ah ee la tixgeliyo fikradaha ardayda jaamacadaha, xirfadlayaasha tacliinta, macallimiinta, professorada, madaxda ganacsiga iyo khibradaha siyaasadda waxbarashada. Daraasadan waxaa la sameeyay intii u dhaxaysay Janaayo ilaa Maarso 2024. Waxaa la helay in ka badan 196,300 oo jawaabood. Marka loo eego qiimeynta 2024, boqortooyada dalka Ingiriiska waxay leedahay nidaamka waxbarasho ee ugu horumarsan caalamka. Dalka Mareykanka ayaa soo galay kaalinta 2, halka ay ku soo xigsadeen siday u kala horeeyaan dalalka Australia, Netherlands, Sweden, Faransiis, Denmark, Canada, Germany, Switzerland, Japan, Israel, Finland, Taiwan iyo Singapore. Guud ahaan, dalkeena Soomaaliya ayaa ka mid ah wadamada waxbarashada ee soo koraya, isla markaana ay wasaaradda waxbarashada dalkeena ay wado dadaal kor loogu qaaday waxbarashada ubadkeena Soomaaliya, iyada oo qaadatay 3,000 oo macallimiin kuwaasi oo ka howlgala guud ahaan dalkeena. Qorshahana uu yahay in la kordhiyo tirada macallimiinta si loo helo waxbarasho tayo sare leh oo loo dhan yahay. Intaan ayaan kusoo koobaya mawduucayna maanta oo aan kusoo qaadanay 15 dal ee ugu nidaamka waxbarashada fiican caalamka. Intaa barnaamij la mid ah isku maqli doono, sidaa nabadgelyo.